maanta ay taariikhdu tahay 5 bishii afraad 2022 waxaan ku sugannahay garoonka Shaati Gaduud magaalada Baydhabo xarunta gumeel gaarka ee dowladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaan saaka ku soo dhaweynay garoonka Shaati Gaduud magaalada Baydhabo xildhibaanadii ugu badnaa ee deegaan doorashada ay ahayd dowladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka tirsanaa labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare xildhibaanadaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku maqnaa magaalada Muqdisho iyagoo howlo shaqo howlaha xaggaas u joogay maanta waxaan ku soo dhaweynay marka tiro ilaa iyo 60 ka sii badan oo xildhibaano ah oo isugu jira labada aqal waxayna u yimaadeen shir wada tashi ah oo dhammaan xildhibaanada laga soo doortay dowladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay isugu yeereen inay ku yeeshaan maalmaha soo socda magaalada Baydhabo ee xarunta gumeel gaarka ee dowladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya shirkaas wada tashiga oo looga hadli doono arrimaha xasaasiga ee siyaasadda ee taagan iyo carqaladeynta joogtada ah ee lagu haayo arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale masiirka dowladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo aan ognahay in dowladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ahayd dowladda goboleedkii ugu horeeyay bilaabay arrimaha doorashooyinka kana shaqeeyay in dalka uusan burbur iyo dib u dhac uusan ku imaanin si nabad ah doorashada ay ku soo gabagabado muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa muuqatay inay socdeen arrimo lid ku ah nabadda iyo horumarka iyo arrimaha doorashooyinka guulaha laga gaaray sidaa darteed xildhibaanada labada aqal ee deegaanadooda ay yihiin dowladda goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya maanta waxay isugu yimaadeen magaalada Baydhabo dhammaantood way ku sugan yihiin maalmaha soo socdaan waxay yeelan doonaan shirkaas wada tashiga ah oo aan isugu wacnay labadeena aqal inta ka tirsan ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ka soo saari doonaa warmurtiyeed hadduu alla idmo shirkaas wada tashiga markaan yeelan kadib marka maanta waxay ahayd kaliya soo dhaweyn aan soo dhaweynayno xildhibaanadaas saaxiibadeen ahaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku maqnaa Muqdisho oo aan ku soo dhaweynayno xaruntoodii ku meel gaarka ahayd si shirkaas wada tashiga dhammaan xildhibaanada dhan go'aan wada jir ah ay ugu soo saaraan waxaan leenahay marka xildhibaanada saaxiibadeen soo dhawaada dhamaantiina magaaladiina ku soo dhawaada deegaan doorashadiina ku soo dhawaada insha Allah shirkaasna waxyaabo muhiim ah aan ka soo saari doonaa warka ma badanayno